بسم الله الرحمن الرحيم كنتو عن وناكسن داوديال idilkiin baa meel kasto aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo aan toddobaadkan ka soo gudbinayno magaalada Burco barnaamijkan toddobaadkan fanka iyo suugaanta waxa martii noogu ah Abwaan Mukhtaar Yuusuf Aw Maxamed oo kamid ah abwaaniinta Soomaaliyeed ee iyagu Ilaahay hibada u siiyay hal-abuurka Abwaan Mukhtaar waxa uu ku dhashay deegaanada hawdka ee kililka shanaad halkaas oo ku soo barbaaray malcamad quraantina uu kaga soo baxay abwaanku wixii inta ka dambeeyay waxa uu ku noolaa deegaamo kala duwan oo ay miyi iyo magaalo labadaba isugu jira abwaanka waxa uu hibo Ilaahay u siiyay inuu tiriyo gabayo maansooyin geeraar heeso iyo waliba riwaayado kala duwan inuu intaba sameeyay Abwaan Mukhtaar ku soo dhawo barnaamijka fanka iyo suugaanta ee Kalsan TV horta aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan ku ummadda islaamka meel ay joogtaba bacdameena oo maantana waliba Ramadaan tahay Abwaan waad maadsan tahay waxaynu guda galeynaa barnaamijkeena fanka iyo suugaanta Abwaan markaa intaynaan u gelin suugaantaada gabayadaada geeraaradaada maansooyinkaaga heesaha kala duwanaad fanaaniinta u dhiibtay intayna waxa soo dhan u gelin bal horta bulshadeena daawanaysa waxaan doonayaa marka uu horeysa inaad u sharaxdo farqiga u dhaxeeya gabay geeraar maanso iyo heelo afarta qaybood waxa ay kala yihiin baan doonayaa inaad u sharaxdo bulshada Soomaaliyeed marka hore Bashir horta waad mahadsantay wana wanaagsantahay sida runhaantina imaka waxa la yiraahdo horta waxa loo yaqaanaa gabay ama geeraar ninkaasi wuxuun baa lagu sheegay ama maanso laakiin waxa weeye dhaqankeena marka aynu ka hadlayno in ay waxaanoo kala socnaadaan ama kala mudnaadaan 1 2 3 sida bilmetal afka kala marka lagu hadlayo oo kale ay noqdaan baa loo baahan yahay koobaad labaad saddexaad afraad loo kala ogaado marka sida ruuxaantii anigu abwaaniin badan nin abwaan oo horta taariikhda marka horeysa macallinkaagu abwaanintii ka soo horeysay weeye ina aad tixgelisana weeye oo kuna dayatay raadkooda hore mari jireen marka waxa weeye marka ugu horeysa ka inuu soo qaadanayna ee ugu horeeyo ugu mudan waxa weeye waxa loo yaqaano gabayga kaas oo kala baxa haddana markii gabyaaga bilmetal nimanka qiimeeya loo saddex qaybood la yiri uu sii kala baxa ama anigu aragtideedaba marka aan fiirfiiriyay aan saddex qaybood u kala fahmay kaas oo ah marka horeysa labaala mise waa saddex le loo kala yaqaano hatta afka markaan kuugu sii daro afkaasina wuxuu ka yimi labaale saddex le xaqii cawsaska hooyay hadda baloogow Bashir marka ka saddexlaay waxa weeye marka xarigii uu ka soconayay ereygu ka soconayay baa saddex goor soo gala cutubka ka labaalina labada dhinac uu ka galaa inta kalena hadal kala buuxiya waxa kaloo saddexeeyo ku jira gabayga oo lagu qiimeeyo hadda waa gabaygii baynu ku jirnaa gabayga la yiraahdo googooska isaguna waa xaqii cawskii buu ka yimi hooyadu googoos labaale saddex le bilmetal isku joog intaba hooyadu way sameyn jirtay marka googoos baa la yiraahdo gabayga googooska la yiraahdo marka aan wax ka soo qaato rag cayiman baa yaqaana oo abwaanintii Soomaaliyeed ahayd waxa kamid ahaa ninkii loo oran jiray Qaasin oo kala gabayadiisa markaan soo qaadanay aynu ka soo gaadhnay gabayadaasi googoos haduu yahay waxa weeye maluman dadka maahmaaha ka dhigta madaxa dad ka soo gashay dabada hadad ka soo gasho labada waa isku mid bilmetal markuu lahaa waxaan ahay macaan iyo qadhaadh meel ku wada yaal Soomaal garan waxaan ahay macaan iyo qadhaadh meel ku wada yaal taartuba marbay malab la shaad muusa taadhab imaka madaxiban kaga yimi marka hore wax ka soo bilaabay taartuba marbay malab la shaad muusa taadhab waxaan ahay macaan iyo qadhaadh meel ku wada yaal midigteeda iyo bidixdu waa laba mataanood mid waa kiisada laha ma garanaysa miisaanna ima saari kara nin maleeyo ereygeedis hadda xagga kaga soo bilaabo miisaanna ima saari kara nin maleeyo waxaan ahay macaan iyo qadhaadh meel ku wada yaal xagga gabaygaas wuxuu kaga duwayay gabayada madaxa hadii laga soo galo iyo hadii dabada laga soo galo waa isku mid waxaan noqdaa maaho maandhow ihsaan laga ma taga ee dad fal bilmetal in abdi bahal ninkii loo jiray waxa ina nuur fadal baa kamid ahaa gabayadiisa gabayga abaalaawo oo kala markuu hadlayay haddaad madaxa ka soo gasho iyo gabayada nuur fadal xagga dad ka soo gasho waa isku mid marka gabayada caynkaas waa googoos gabayada noocaasina waa googooska marka saddexlaha ugu mudan baa la yiri haddana saddexla googoos baa lambar 1 ka u qaata marka loo qiimeynayo saasan ka qabaan ugu
واي جرار محن قرية أفك الصومالي مركنا إجنو جرار محن كم معناه جرار waxa la yidhaahaa marka laga yimaado gabyaaga waxa ku xiga baa la yidhahaa geeraarna waxa weeye waxa la oran jiray fardafuulka ama dhaanka hooyadu marka bilmetal dhaanka marka hablu kaxaynayaan oo kale waa marka horeysa mid sare joog horta lagu tirinayay qof hawshaysan baa tirinaya marka geeraar gi way waa kii codka la celinayay marka imka geeraar soo qaadano markaan soo qaadano abwaanintii imka dadkan fahmi karaan bilmetal master timcade abwaankii weynaa sareeyo manusqamo aan sidoo yahay egne kana zeebgana saareen bilmetal waa tiluuran jiray bilmetal marka imka fardaan nimankii u fuuli jiray ma baqbeeni yabmidiyo ma baran ku cabsiyay hadadii badin weedo wallan bayda ku goynay waa kii kala ma garanaysaa markaas runtii abwaanintu waxay u soo qaataa garaarka wax la yiraahdo markan ku naxweeyo wax waliba wuxuu leeyahay naxwe oo hadii la isku qabto waxa loo noqon karaa icraabin sidii ereyga carabiga oo kale marka garaar waxa markaan icraabina uu noqonayaa gi lagu wadayay Soomaal kale bilmetal dhaanka oo kale lagu soo kaxayn jiray shalu taaganahayo wud shaluutir ku xidhnaayo xalu taaganahayo wud tagooga casoobayo dhulku taakinayay bilmetal hablu awrkii bilmetal xalayto uu xidhnaa dhaqankeenii oo meel buu fadhiyay ilaa maantana way soo waday marka awrkii bay leedahay marka saas oo kale dhaankii maqnarsa marka garaarku waxa weeye waxa loo soo qaataa dhaanka kamid aha fardafuul laakiin asalan wuxuu ku yahay fardafuulka sidaan ka fahansanayna waxa weeye garaarku inuu gi loo jeedo kii sida la oranayo weeye laakiin gabayga waa tuugiisa lagu yiri waxa iyadana abwaan doonayaan inoo sharaxdo maansadu waxaan maqlaan inta badan maansooyin maansado halkay suugaanta kaga jirtaa maxay tahay maanso horta sida runaantii maansada kelmadda la yiraahdo waa lagu muransan yahay laakiin inay suugaanta ka mid tahay wala isla waafaqsan yahay laakiin oo markaan magaceeda xagga markaan ka eegay bilmetal naxweynta icraabinta aan u saarnayna waxa ay noqotay anigu aragtida aan ka qabo markaan anigu icraabiyay inay noqotay masa oo afkuba carabi yahay ka soo bilaabatay oo sida aab oo kale waxaad garan kartaa aabo de waxaan ku carabi ka yimid Soomaha afkeenu soo galow iyo xiro dhalan buu kale leeyahay marka kelmadaasi asalkeedu horta wuxuu noqday in carabi ka timi markaynu xaggeena u ciraabinayna waxay noqotay maansiis Soomaal garan maankasi maankina waxaynu garanaynaa maankiyo qalbiga de si fiican banu garanaynaa marka taasi way markay taa noqotay qof banbel buu qaatay qaar waxa leeyeen wixii la tiriyaaba waa maanso laakiin anigu uma qabeen maansada waxa aanu qabaa sida run ahaantii in ay ka mid tahay heesta waxa loo yaqaano oo heesta waa la yaqaanaa xad quray leeday waxa kale lagu yaqaanaa heesta marka la leeyahay deewaatii cayaartii caadiga ahayd weeye صح taas oo ahayd hees maxaa loo yiri markaynu iyadana naxweynka xagga naxweynta saarno hey hobeyo ay chiifte kare bari hey chander tre hawdey hobey chafla reer waqooyiday namidna jidka heli iyamaan kugu jiida waa ka deelaha inaan ku garanaysa marka saddex laxan baa loo kala saaraa loogu ciyaaraa wadankeena marka ay joogto oo imika saddex laxan bay ka koorantay laakiin hees markaan soo koobno waa tii hey la oranayay saasan ka qabaano laakiin waxa ay u dhowdo dadku caadiyan badankiisu ugu yaqaan lagu oran kara ninku haduu ku ilaa maansan tirinaya gabaygu isagu bilmetal ma qaldamo waayo gabya imika waxa weeye saaxiib waxaan weydiin doonaa oo bilmetal abwaaninta kale kuleyna daawanaysa insha Allah inaga wada salaamayna aan imika ba weydiin doonaa afkeenu waa soo galow iyo xiro dhalan waxa la yiraahdo wixii soo galay xiro dhalanka inoo ahaa marka wuxuu noqday laba qaybood haddana u kala baxay mid isagu isturjumaya iyo mid in la ciraabiyo oo la naxweeyo oo isagu la turjumayo laga hadliyo u baahan
ayuu noqday imikaba af badan oo la wada yaqaano imikaan weydiin doonaa anagu bilmetel nimbe ciraabintiisa inta uu ka qabada isaga yaqaana waxa kamid ah gabya ereygaasi in xaweeb ku leeyahay ma macna gabyaaba meesha taala muxuu yahay waxa weeye waa looga baahan yahay cidii soo furaysa waxa kaloo kamid ah abwaan waxa la yiraahdo imika magacanaad igu yeedhisay ma macna abwaanka iga hadal siib ku leeyahay ha iska sheeganaynuune waxa kaloo bashiri jirta waxaan la yiraahdo imika yar ku jeceliyan la ilaa suugaanta maya fanka iyo suugaanta labadaba fanka imika yar aad u qaataan fanku waa wax jira marka waxa weeye ma macna fanki muxuu yahay waxa kaloo in ku raacinaya ma macna suugaanyahan waa tan la leeyahay kuma leedin intaas oo ereyo oo ka wada mida ereyada lagu qowle ee sida maansoo kala kamida waxaan u faraynaa imikaba in ay bilmetel bulshada wax ka fahansan inana daawan doontaa insha Allah inay ka soo hadlaan laakiin anigu hal mid qura ayaan ka furaya si bilmetel wadada aan u fahansiiyo waxa aan ka fahansanay anigu aragtidayda waxa weeye taan ka furaya waxa weeye waxa la yiraahdo abwaan waxa lagu yiri abwaan aabihi waanada weeye waa abwaan marka labada erey markaad ku dhufato muxuu noqotay aabihi waanada marka ninkan looba yaqaanaba maaha anigu aragtidan qabo aaba kasto oo wax waaniyeeba waxa weeyaan abwaan laakiin maxaynu oran karaa ninkan imika maanta aad ugu magacaabaysaa ma magaciisan abwaanka la sito waxaan oran karaa anigu curiye Soomaal kara waxa kaloo oran karaa unugaasi muxuu ka yimi xariga bilmetel marka imika hooyo saa unkayso soo unug bay hooyadu tiraha waa kameelaan waxba jirin wax ka sameeya ka soo unka waxa kaloo oran karaa hal abuur marka magacyo badan buu leeyahay ninkani laakiin abwaan waa magac jaamica oo dadka dhan ka wada dhaxay abuul wax waaniyaba leeyahay daawadayaal anagoo aan ugu gudagelin maansooyinkii uu tiriyay abwaan mukhtaar waxaan wali ku guda jirnaa inaynu faham guud ka qaadano faraqa u dhaxeeya gabay geeraar maanso iyo waliba ta u dambeeyay oo ah heelo abwaan marka waxaan doonayaa inaad inoo sharaxdo heeladu halkay ka soo gashay suugaanta iyo afka Soomaaliyeed heelo horta sida runaantii anigu qaabka markaan raadiyay heelo waxay ka soo gashaa sida aan ku leeyahay ciyaartani aan ku leeyahay saddex line baa loo laxanka loo kala saartay waxa weeye qariyada imika ogaadeenaya ayay u tahay jifadhig sida runaantiina afka aad bay ugu qoto fogayeen marka heelo waxaan soo garanayaa aniguba waqti bilmetel la oran jiray 4 iyada oo ay ka hadlayaan bilmetel anagoo yar yar oo ay dhaantaynayaan marka way oranayaan qurqadooyo rangi qarmacdu kaariyay hele oo marka ay ku horinayaan bilmetel laxamkooda halka ay dhaxdhilka way u hele marka waxa weeye marka aynu heelan idhaahno horta si kastaba haatee waa tii hele looran jiray hatta waxaba la yiraahaa inagu de oo caadiyan noo soo haydo soo jiray bilmetel imika riyaa si gaaraba markii hooyadu alla wada loo oran jiray hele gariimada ugu baysaasa jirtay moogtay marka waxa weeye heeladu marka aynu xagga u ciraabino waxa weeye tii horta la hele ay ku jirtay weeyaan marka laakiin waxa aan u qabaa oo anagu u ciraabinay inay tahay waxa dhaantada loo yaqaano Soomaal garan waxaanu abwaan imika bilaabi doonaa bal inaynu bulshada Soomaaliyeed u gudbino qaar kamida maansooyinkii iyo gabayadii aad tirisay waxaynu ugu horeysiinaynaa markaa maansadii la oran jiray dhugasho markaas maansadaasi waxa ay tilmaamayso ayaad hordhac naga siinaysaa dabeedna waad bilaabi doontaa tudciyo kamida waxa weeye horta walaaleen waa gabay bilmetel imika anigu ayaan u aqaanaa saddexlaa imika gabaygan aad weydiinayso dhugashaana la yidhaahaa kulley abwaanin kalena gabaygan dhabka hadal dhabay igu yidhaaheen markaa sida runaantii gabaygani waa gabay bulshada Soomaaliyeed dhammaanteedba la wada hadlaya marka yar yar iyo waaweynna uu leeyahay bal waxaan hadda warkan aan wada bal ila eega marka gabaygan dhugasho markaan ku dhaho waxa weeye bal hadda eeg weeye marka gabaygan wuxuu ku soo bilaabay oranayaa gabaygan dhageystay buu oranayaa gabaygan marka dhageystay dhagaa dadka soo jiito dhageystay dhambaal waxaan sidaad u dhumuc weynay dhalinyariya waayeel dhugta oo yuuna idin dhaafin dhiig iyo lafaha u dhacee
hadalka sii dhuuxa dhaansaday haddaan kuu dhambalay ceelkii dhababnaay buu dhaaxaan murtida kuu dhigdhigay erey ma dhaafaanee dheg la waanshay dhalan baa ka adag dhuuxa kuu galay ee ka dhigniyey ninkii dhagaxdixeed soo dhaqaaq yidhi dhulku waa dhabtii hooyadaayoo laguu dhigay dhalanteed ninkii moodayow aadan buu dhalay dhimashana dhexdiisaan gallaan iil ka dhiganaa dharaar kalena amar baa dhacay oo laga dhammaadaa ee dhammaanteen inaan dhoobanay baan dhaar ku marayaa dheeli yuu dhanna u ciirin baa loo dhidhibay buuree dhacadiid waxaa loogu dhigay dhuuhanaan garanay dhabarkiisa unbaa dhismiye dhaqana noo yaal dhalankiisa dhaayaa nidee wuu la dhaygagaye dhan loo dado dhulkeennaa u mudan dheef dabiiciya waana dheemin iyo luul dhirtiiyo dhagaxa yaalla dhinacyana badan laga dhammaan webiye dhaadheer dhadiga oo labood lagu dhafay baa dhaliyo hoobaan dhusulladeennanaa dhaansano idhocori buuxda dhita iyo wixii dhuuniyaa looma dhaadhicina dhur sugnayay waxaan dhowraynaa midho dhalkiisii dhaliiliya dhib hoosaa jirtool cidise dhaadan dhadhamaana nacas dhaabsadaa dhaxal adowgiiee dhayalmood ninkii dhoyle ah wuuna dhaawacay ku dhaqaaqni dhoof iyo waxaan dhaaminoo badan dhaqayada nin maaliya dhanxiir soo dhambuuqsadee dhufays noqotay diintiina dhexgale cadow ku dhunta ee dhaaxaan murtida kuu dhigdhigay erey ma dhaafaanee dheg la waashay dhalan baa ka adag dhuuxa kuu galay ee ka dhigniyey ninkii dhagaxdixeed soo dhaqaaq yidhi haddaan dhalan rog weyn baa dhacay ee dhaqankii loo laaban oo dhaayin goortay dhashaba dhaadhiye laga daynin dhidh kan baxayna aan dhayma jara helin dhakhaatiirtu laftii dhabarka xooluhu noqday aan la wada dhowrin dhaafi mayno dhoof iyo gamcahon dhiganna qeyrkin dhimashaa u dhaantana ninkaan ceeb ka dhiidhiin dhismina waa haddaana qaldhigaa udub dhexaad hayn dherigoon dhadhaarada lahayn dheef ma kariyeen dhergina maynu jeeroon dhammaan hawl u dhididna dhurdahaba itaalkiisa dhowr malab wuxuu dhooray dhadhaab adag wuxuu xaggar dhexdii reer u dhiganayay dhadhan sugan wuxuu miidu dhammaduu dhasha u siiyey isku dhaabnidaa libin dhashay oo uu ku dhiiraday ee dhunyaaliyo dhurdaa tacab dhigtee tamarna dhaame dhaaxaan murtida kuu dhigdhigay erey ma dhaafaanee dheglan waashay dhalan baa ka adag dhuuxa kuu galay ee ka dhigniyey ninkii dhagaxdixeed soo dhaqaaq yidhi dhugato iyo xadhaadh geella wou dhogor xumaada mala aad badde halka loo gargaran maayo marka dhugatiya xadhaadh geella wou dhogor xumaadaa ee dhaleeciyo nirgahoo furuq ku dhacay baad dhiifta garataa dhukaan iyo kudloo dhundhabaa wax isma dhaamaan dhacan wuxuu u jiidhaanaa dhuug hadduu gano dhitis dhadan dhatays waa dhurwaa dhalamadiisii ee inkastoo la dhoobdhoobi jiray dhuuxa nabar gaadhay dhudhun iyo laf dheer ruux ka jabay dhiiriskaad garan dhantaal noqoyna kaan dhaadinay taladu dhaafta dhagar miino ruuxii dhigay kii dhabbada xaadhay dhugmatiga intuu muran dhex yaal meerisyaa dhimanee way dhowdayo walaal muuminow shalay tamay dhaami dhaaxaan murtida kuu dhigdhigay erey ma dhaafaane dheg la waanshay dhalan baa ka adag dhuuxa kuu galay ee ka dhigniyey ninkii dhagaxdixeed soo dhaqaaq yidhi soo dhaqaaq yidhi dhiciskiiyo dhammayskuna dhalmiyo dheefu kala roon dheeldheelo laabuma dhaco ma laha xeel dheer dhar ninaan lahayn loo xidhana dhaxanka biin waa dheen maarag kaan dhoofu tegin wuu u dhololaaye dhidarkii madheeraa la dhacay haatan loo dhuray dhaqan lume dhallaankiyo afkaal waa tan loo dhigay ee dhiishki dharaariyo habeen dhowraysaa dilay dhegta moobilkaa saaran baa maati dhaawacay maskax dhooli lagu qaatay baan soo dhig leeyahay xiniyana dhibaat kuma baxaan la isu dhiibta dhaygag iyo wuxuu dhabanahays aniga ii dhuubay dhafoorada waxaa ii gudgodeen dhaadasha u daayey dharaariyo habeen waxaa murtida iga dhawaaqsiiyey dhirbaxada shisheeyahan arkaa ee dhulkeenna dhaaxaan murtida kuu dhigdhigay erey ma dhaafaane dheg la waanshay dhalan baa ka adag dhuuxa kuu galay ee ka dhigniyey ninkii dhagaxdixeed soo dhaqaaq yidhi hobalay hoobe oo markaa anugu dhuubnaanteedana waaba nagu xilqarsaday saaxiib aad iyo aad baad u mahadsan tahay abwaan mukhtaar yuusuf aw maxamed taasi waxay ahayd daawadayaal mid ka mid a maansooyinkii uu abwaanku tiriyey inagoo weli ku guda jirnaa gabayadii uu tiriyey abwaanku waxaan doonayaa abwaan inaan horta halkaa gabayada ku yaro joojino oo aynu gabayada usoo yaro noqono daawadayaal iminka waxaan jeclayaa inaan abwaanka ka waraysano dhanka heesaha uu sameeyey oo uu fanaaniin badan u dhiibay oo muusigii la saaray oo runtii dad badan ay jeclaysteen waxaan jeclayaa in aynu ka waraysano qaar ka mid a heesaha abwaan waxaan doonayaa aad nooga waranto hees wuxuu leeyahay abwaanku la yidhaahdo hooyo oo ka mid a heesaha uu tiriyey
abwan markaa waxaad nooga warantaa heesta hooye la yidhaahdo bal qaabkii ay ku soo baxday inaad nooga waranto dabeedna erayadeedii aad noogu xigsiiso. walaalo bashir horta waad mahadsantahay su'aal wanaagsan weeye horta sida run ahaantii nin weyn markaa tahay horta waan heesay horta waa laga yaro wanaagsan waliba anigu waad si lahayd nooca qaybaad isugu jirtaa oo xagga culimada markaa dolo lagu sheegaa aan ma garatay marka sida run ahaantii haddana bulshadu waxa ay jeceshahay sida run ahaantii adoo dhax galay baad arkaysa qisada ay ku soo baxdayna waxay ahayd qisa dhaba sideedaba horta qisa dhaba waxaana insan run ahaantii waxba kama samayn karo waxaad arkaysaa imika nin waxyaabaha soo kordhay bay ka mid tahay nin imika maalin walba ama hees samaynaya ama maalin walba gabay buu leeyahay waan wadaa wax dhacdo dhacayna uma hayo marka iyo daaniga halka waa igaga wallahi fiicati baabar sida abwaaninta waa lagaga badiyay laakiin imika u badan tahay sida hees jacayl butirinaya miyaad u tirisay baa ma dhacdada miya dhacday waxaan ku ma yadee istaasun ka soo qaad buu leeyahay marka sida run ahaantii heesta hooyada waxay ahayd reerkaygii baan ka yimi miye ayaan aalay markaa moogtay oo had iyo jeer ale imika miyi iyo magaalo leebada leegama wadaay macaa imika alaana binada miyigana magaaladana way jirtaa miyi xaggina dee xooliba daaqayay geela waxeedii ilaa maasha Allah ha labadaasna aad baan u jeclay wali miyigaas jeclay anigu Soomaal garan markaas run ahaantii hooyo anigoo bilaa shaqaan magaaladii reerka yimi 2 sanadood baan ka soo maqnaa marka hooyo reerkiiba intiisii kala sii haysay baa fariin soo dirtay waxay tiri ii kaalay hooyana waan maqli jiray markii ii keento warkeedu ii yimaado 2 warqadood isdaba joogay ii timi hooyo waayo waan imanayaa baan ku soo celiyay marka meel cidlaabay iga odorostay warqadu maan dirin adhigii iyo miyiga qof hooyadii miyi joogtana wada garan kartaa intay soo iibisay baynan magaalada soo kaxaysay bay soo dhiibtay lacagtii moogtay marka xoolihii miyiga daaqayba intay ay hooyo haysay intay iibisay ayay lacagtoodii kugu soo dhiibtay xaq qof magaaladii u soo kacay sidii waliba hadda xooleygu way joogan kuweedii intay waliba dumarkay ka qarisay bay kuweedii qaar soo iibisay qof tagayna waxay tiri meel madow ugu dhiibo meel cidla ugu dhiib marka waxay odorostay inaan guriga rag markuu in badan ka soo maqnaada hadii uu lacag waayo guriga kuma ba noqdo adag moogtay aniga saaqida jir marka toole miyiro ka yimaado waxa guriga dib ugu noqdana uu waayo safarade ninka wuu iska maqnaada lagu yiraahdo buu leeyahay moogtay marka waxay odorostay inaan lacag la'aan gurigii uu iman la'ay marka lacagta ugu dhiib ku soo muraadso degdeg gaariga soo raacay tiri marka lacagti nool ma halay soo diray waxa weeye waa lacagta dumarkayga ay la joogtay aan siin lahaa safar iyo mariyo soo siin la moogtay marka waa la yaabay moogtay sida u garatay sida deema bilmatal halkay joogtay sida wax u kala badbaadinayso marka bashir waxay noqotay sida runaantii inaan aniguna hubigaygi de abwaanba meel ma wax uga muuqdaan moogtay marka heestan ayaa igu soo dhalatay marka calooshii ilma lagu galay waxaan ku jiray qaadu meel ku jiray aan abwaankii kale aanan ka eeganaynin oo iga madax banaan ba aniga Ilaahay iga siiyay jacaylka markii igu jiray hooyeenana wax idhaaho marka wuxuu yiri heesta waxay aad midhaheedii way tumanto adiga dhageysanayay heesta midhaheedu wuxuu ahaa gacalooyo mooy galad iyo abaalaanan gudi karayn hooye ii gashay garan waayay yaa kula gudboon ku garab dhiga gacalooyo mooy hooye gacalisoy ba kooraska wadiga uga dhignay moogtay halkaad marka kooraski marka nimka sidan u heesay halkaad gaadhsan tahay lama gaadhay gurigii jannadu gogoshaada noqoy gacalooyo mooy hooye gacalisoy erayadeedii marka nimka ku maanseeyo anoo gibinaho gobol yaro cadaan uurkaaga galo guyaal aan ku jiray garka taga wadnaa adaa ii gogloon ku galgalan jiroon igu haadin jirin gooriya alleyl dadba gamaasan yaad gurmadii kiciya gaadhoon yahay halka hadda waxaan qarinayaa saaxiib xaarka iyo waxay hooyada habeen barka ay soo faad garan deeni weyn xaarka horta laga soo bin jiray laga wanaagsan laakiin sida runaantii hooyada markay tay waa hawlaha ay ku shaqolootay gooriya alleyl dadba gamaasan yaad gurmadii kiciya gaadhoon yahay guudkiya aadaa gosha igu sidoo gacantiyo go'aana gadafta iga dhigay gaajada adaan ka gasiintay oo geeli dhaliyo gaadidii ahaa adoo ii godladoon iga gaagaxayn waataan gujada ku galaamin jiray waxaan galo anoon cidi garanin baad magac gobonnimo iyo geesiyo witri
hooyo waliba ilma waa tilay hadee abwaanintii hore ninba habar ba habeen dihaato hubsan maysa intay la haftiri waan hubaayo wahliyay tiri waa tidaayid moogtay hooyooyinkeenu waa qaalin moogtay qorrax soo godiyo waago galaciidaadii gardaadi soo la gucleed adigu heestu saa laxamkeedina waxaan uga dhignay markaa erey ducaa moogtay halkaad gaadhsan tahay lama gaadhaye gurigii jannadu gogoshaada noqoy gacalooy mooy hooyo gacalisoy markaa heestaa wallahi waa jecelahay waana heestii hooyooyinka muslimka oo dhan ha waxaynu weli daawadayaal ku dhex jirnaa suugaantii abwaan mukhtaar yuusuf aw maxamed oo ka mid ah abwaaninta hadda ku nool geyiga somalilan abwaanka waxaynu jecelahay abwaan inaad weli nooga sii waranto qaar ka mid a heesihii aad samaysay waxaynu iminka daawanay heestii hooyo oo abwaanku inoo mariyey tuducyo ka mid ah heestaa waxaan jecelahay inaynu weydiino hees labaad oo abwaanku sameeyey oo dadku runtii ay aad u dhageystaan oo la yidhaahdo jahawareerka jacaylka markaas waxaan rabaa abwaan inaad nooga waranto abwaan baan rabnaa heestaas jahawareerka jacaylka iyo qaabkii ay ku soo baxday horta sida run ahaantii heestaa jahawareerka jacaylka la yidhaahaa jahawareerka jacaylka horta heestaas sida run ahaantii kollayto dee aniga ilaahay iga keenay laakiin qisadeeduna qiso dhaba bay ahayd markaa dadku way isweydweydiiyaan qaar baaba meelo kala mooda ma garanaysaa oo haddaad jahawareerinayso markaa heesta midhaheeda marka aan anigu marka hore ku idin mariyo bilbeetan marka midhaha kuu mariyaabaad si fiican wax uga dhex fahmi kartaa markaa wuxuu yidhi jawr baad ka gashoo jacaylkii jiciiray markaad jugaysay buuhi jawr baad ka gashay jawr baad ka gashoo jacaylkii jiciiray markaad jugaysay wixii jaayfooyin wuxuu yidhi jawr baad ka gashoo jacaylkii jiciiray markaad jugaysay wixii jaayfooyin gaadhay joornaalla ayaa qorayay qolo wariyayaala daba socotay buu yidhi haddaba sheeroo kaleyo wixii jaayfooyin gaadhayna joornaalla ayaa qorayay wanaaggii dhexdeenna joogayna adaa ubaxii jaraaya waa saddex cutub bay tahay ma garanaysaa kooraskii baa yimi ee haddaad jahawareerinayso sidaa kuma jiri karaaye anigu jaw nabadgeliyay jacaylka halkaa igu jooji dee jacaylku waa doon baa la yidhi saaxiib la fuulo moogtay markaa anigu balaa ka degay dee haddaad jahawareerkana ku jirayo ii jooji buu yidhi cutubkeeda labaad dhulkaad jiidadoo jacaylkii wuxuu yidhi dhulkaad jiidadoo jacaylkii adaa jibiyo janjeersay buuhi dhulkaad jiidadoo jacaylkii adaa jibiyo janjeersay jidiyo ceel markaad u duuduu habaabay jeheeyihiisa ujeedda haddaan la hayninna najiidda la gaadhi maayo horta sida run ahaantii oo inagu horta bulshada waxaan uga soo qaadi karaa si fiican ujeedda haddaan la haynin najiidda la gaadhi maayo oo saaxiib dee haddii wax ujeedda aba la waayo dee sida run ahaantii dadku wax najiiddaa ma gaadho moogtay waa sida imaka ay bulshadu badankeeda aad ku arki karta moogtay ee haddaad jahawareerinaysa sidaa kuma jiri karaayo anigu jaw nabadgeliya jacaylka halkaa igu jooji cutubkaa dambe oo ayaa wax yar turjumaya moogtay markaa wuxuu odhanayaa saaxiib ruuxii jaahilaan jacaylka u jiidhnixin jamashadiisa anoon geenyada jaraynin ayaan jeedalun la fuulay jarmaado markaan raacayna jar bay iga tuuri gaadhay buu odhanaya moogtay halkaa markaa saaxiib dee waad mahadsan tahay abwaanku wuu mahadsan yahay inagoo weli ku guda jirna daawadayaal suugaantii abwaanka waxa uu abwaanka aynu ka codsanaynaa inuu imikana inoo mariyo maanso la magac baxday doorasho oo uu abwaanku soo saaray wakhtigii doorashooyinku ay ka dhacayeen somalilan iyadoo sida abwaanku ii sheegay ay ujeedadiisu ahayd dardaaran uu shacabka u dirayay laakiin ka hor dhici maayo abwaanka inoo sharaxi doona abwaan maansadaas ayaan rabnaa inaad bulshada soomaaliyeed u sharaxdo qaabkii kusoo baxday iyo tuducyo ka mid a walaal horta waxa weeye bashir waad mahadsan maansooyinka dardaaran ahaan aan doonayo dadka inay gaadhaanna ka mid bay ahayd markaa waxay ahayd doorashada markii meesha la yidhaha Hargeysa madaxtooyada sida run ahaantii maamulkan imika haystaa iyo maamulkii hore ay kala wareegi doonaan bay ahayd maalinkaas oo rabshad ka dhacday madaxtooyada ayay ku soo baxday markaa waxaan soo xasuustay sida run ahaantii dhibaatooyinkii hawl dhacda ay leedahay nabadgelyo la'aantu ay leedahay moogtay laakiin waxa weeye doorasho bay u taalaa meel wal oo doorasho ka socotaba de waa tan imika wada urur miidhan iyo meel walba doorasho qof waliba waa kan doorta markaa maansada markaan kusoo dhawaado wuxuu dhan leeyaan oon dayrkeedii furin doonahayn inaan dabla ooga shido dacar iyo aanoon deebaaqdii marin
daaraamihii iyo nabardooxahayn anigoo dul maroon hoos u daadegayn maansadan ku digay maydin deeqaysaa dhegdaguugan iyo maygeli dubaa qalbiyada dacguray ma ku doogayaan duqunimad iyo maygaran daraad daan ciroole muddaha uga rogi dibnihii iyo afkiiyo uur kala dadbani waa wixii dilay away daacadnimo danni beena iyo dood joogta ay ku dagaalantee ma daweynayna dumiyay dhisay baana daashatee daarahan qotomo ma la daynaya dulli iyo xumaan lama daa'imee dilaaliye malaal ma la diidaya qaran duuban oon kala daadsaneen oo dawlad raba xagee laga dayaa dal shisheeye iyo dibad yaa nacoon dawarsiga khalqiga doondoonahayn kuwa idhaa marna roobkii nagu helin marna soo madar kuwa aad baan ula colahay moogta yaa dirays xidho oo u diyaarsan oon dulustiyo sharciga baad ku doonahayn laaluush daldalabaa daw noqdeen inaan duunyo bixin ma u doodayna daran yay qabtaa waynay daalan tahay ha la daayee ducayaa qaboo qaran doojiyoon u dirnaa horseed dulin horaa cunoo laga diga rogeeyaa daleed bannaan dayrka uga dhigay halka daaqalee doogeedu baxay deegaanta yaa nagu daajin kara darka ceelka yaa dawliska u qabto ha durduuratee u dardaray wadaan dallad ruux sitaa qorax kama dednee damal yaa hayoon durrijaa lahayn dawri arhashaan waran kaga dirnaa dacda taagan ee madanaynayna waa daawadoo way dararsantee kii dambarin lahaa ma u yahay diyaar dulin iyo dhurwaa dudada u gelee inta ayna dilin ma difaacayna deris iyo xigtaa loo daran yahay wayna deeqiyay ma daryeelayna duhur maalin weyn dayax lama sugee yaa dulqaad lahoon dunta ugu xidhaa durduradan socdiyo dooxayaa jabshood dalaga u kacoo beeraha u dalbaday dunyadeenna iyo duurjoogta hawdiyay dabar goyne ma daryeelayna dahab iyo shidaal diirkama xigee dahab iyo shidaal diirkama xigee yaa u dalooliyo u dalbaday kambani badda daakhil iyo dusha yaa dadoo waxaa deeq dhextaal uga soo daldalay inta daaqad furan ama dalow bannaan yaa daboolayo saaka loo diraa hobalayay dee anagu waan ka soo sheekeeyey waxay u baahan tahay dee markaa anagu waxaanu leenahay aya kasta bal isku kaya haysto wuxuu ku yidhi aniga kolba kii waa habaryartay waa wuu yidhi adeerkayune laakiin inta aanu kuu soo qabanay intaasa ee ama af iyo dibna kala calool kala dadbana ama inta baahideedu ay tahay ama hasha daryeelkeeda soo maad garan dee cutubkayada waa saaxiib waad ka dhexeli kartaa ayaan u baahanay haddaan anagu shacabka afkii shacabka mana ku hadlaya anugu waad mahadsan tahay abwaan mukhtaar yuusuf oo maxamed daawadayaal weli inagoo ku guda jirna suugaantii abwaan mukhtaar waxaanu hadda dhegaysanay gabaygii la odhan jiray doorasho abwaan waayadii u dambeysay haddaynu horta halkaas suugaanta abwaan yar ku yara hakino waayadii u dambeysay af soomaaligu waxaa la sheegaa inuu isbedelayo oo erayo hore laga guurayo oo erayo cusub oo fara badan ay soo galeen oo erayada waxaad igu tiri qaarna waxaa la yidhaha xeru dhalan qaarna soo geleed ayaad igu kala macnaysay marka bal af soomaaliga maanta halkuu marayo iyo siduu isu bedelay bal ogaanta maxaad bulshada Soomaaliyeed ugu sharaxi lahayd halka sida run ahaantii walaalo bashir horta waad mahadsantahay waana su'aal aad iyo aad u wanaagsan qaalina marka waxa soo dhacday afkeenu waxa uu ka koobnaa marka horeysa in xeru dhalan markaan ku leeyahay soo galowba xeru dhalan markaan ku leeyahay waxa weeye geela bilmetal waxa loo yaqaan xeru dhalanka uu ka yimi geela afar awow shan awow lix awow iska soo dhaxashay awowgaagi hore awowgii ka sadhaxlay sida ahay soo jiri jiray hatta geela kale saaxiib uu ka dhib yari moogtay waxaan ku wari waa geel isyaqaana awra taqaaniyo hala taqaano la isu xulay ba iska dhalay moogtay oo isku hidaa waa isku firba la ilaa moogtay وهالك كلا هندين هوينك يجي لبوا ولا يترعى عدي أبوانين نكلا أي مكبا واحد نقن كده تكون ده سوغنتي نكلم بتكيل سموكتي مركا صدر برهانتي إن وحلا يراهو إن حرودلانكو جيلاس كله هنشري حتى مكلا لما مكلا بيرو وحنقول وجيل كهول بدن وجيل كعانة بدن وجيل كنعف بدن وجيل وضيق عنه مركا حرودلان جيلاس الله يراها مركا ورئيسا سوقلون وحلا يراها جيل القرآن كركا بالبيت المقطع كله إما كان لين وقت الصومالي دي واحد مقطع كلا قاعدتها إما كان العقد ما لا يبرجو هو الجيل ومبدل كلا قاعدين شري مركا بقول حالات بانك بالبيت اللي قاعدين شري بقول كي حالات قبيل كي وهابا بقول لين بقى كلا قاعدين شري
marka boqol geel ba laga soo kala eri jiray moogtay boqol qaalmo yar yar oo midba boqol geel laga soo kala muqniya la soo keeni jiray moogtay geela salayda soo galeeti noocaas oo kala marka xeer dhalan iyo soo galooti kaasi marka waa wax dhib badan cidima celin karto in caana ma yeesho cad ma yeesho weligii habeenay inaan ka raacay isagoo dhan soomo xareynin xagga geela markaynu nahay marka in afkeeni marka uu sida ahaa sida runaantii soo galowgii baa inagu soo batay mid xeer dhalanna xeer meeshiiba ka saaraya erigii wal ee soo galowga inoo yimaadaaba mid wal oo xeer dhalanaba meesha ka saaraya marka aan tusaale bilmeter kaaga soo qaato in sida ay u kala bedelayeen imika soo galowgii bilmeter in muraadan aan jeebka ku hayaa tan imika aynu daawanayna waa muraad soo maaha dee carabiga ka timi laakiin waxaynu oran karnaa in afkoorta xaggaas aad inooga badan yihiin moogtay iskaatus baynu oran karnaa marka inka afkeena soo noqonayno moogtay marka imika muraad markay noqotay iskaatus meeshii way ka saartay oo dadka muraad buu yaqaanaa marka iskaatus wiisaasi ku baadiyoobaysaa bis eri wal oo soo biiraa mid xerada ku jiray ayuu laadayo beer ka laadaya marka war koobankaas iyo waa sida waxaana dhacday maanta inay bilmetel sida runaantii deena afafka kala baranaa way inoo furantay laakiin maxaa ka horreyn jiray imka in ardayda wax barashada imka de billions qof ba ka barta magaaladeena Soomaha billions ka qof iyaguna afka ingiriiska iyo turjumaan anna af Soomaaliga u turjumaa saaxib marka meel yar gaaban kaaga soo qabto de waa halkan aan kala dhaqan lume dhalankiyo afkaal waatan loo dhigay Soomaal garan macalinka labaadna waxaan uga dhigay dhiishkan waxa la doono looga soo daayo dhiishkii dharariya habeen dhowraysa dilay buu marka ka soo baxa taasna dhiishkaas u eegay waaniga halka uga soo qaadanaya kale dhiishkii markay ka yimaadaan halkaana macalinka labaad waa dhiishkaasna wax afskeeni laga daawan ma af ajnabi iyo dhaqan ajnabi laga daawanaya marka aan waxaan ku wari isla raanti gabaygaas markaan imkayno ee nidhoon sii qaadno maskax dhooli lagu qaaday baan soo dhiglay markaan ku leeyahay dhooligu dee xataa eriyada turjika u baahan waa baalkan imka ambalaaska loo bedelay laakiin bariga hore afka hore soo jireenka wuxuu ahaa dhooli lagu saarbalon jiray qofka moogtay Soomaal garan marka maskaxdii waxa loo qaatay Yurub inanku waa inan reer Burca moogtay waa inay hebel jasadka waa ka inay hebel halku ku dhashina waa ina Burco wax alaale wixii jinka hoosana waxaan ku waa Yurub ama inanti moogtay bilmetel marka miithal marka ka soo qaato waa saasoo kale marka meel laga qabsadana maskaxda u qaalisan marka maskax dhooli lagu qaaday baan soo dhiglay dadka maskaxiisi da'yarta oo meesha Yurubaan isku haysanaaba marka gabayga ku jirtay saaxiib horta saaxiib aan in yar kugu noqdo maalin baanu ka hadalnay in qolaad tidhi waxaan maanta ka hadlaynaa da'yara oo abwaani Hargeysa nagu joognaaba waxaan ka hadlaynaa ragna waa raggii hore hadalla waa intuu yiri baan doonayaan ka hadalno oo dadka maxaa tiraaheen kelmadda markii cidina xiriga dhageysan mise kelmadii la dhageysan baan doonaynaa bay yiraahdeen moogtay waxaan ku oo dabeed horta marka hore sidoo qaldantiino waa aabayaashin waxaan cidanad haysataan laakiin bal wada oo bal rugrogo bal hadaba maxaa tiraaheen waxaan isla meel dhignay bulshada yarkii aankii reeb waanintaha raguna waa raggiisii hawraarina waa ninkii hela kelmadii ma dabosh waa dabosh sugaban ku dhig haddaba 5 nin oo raggii hore ka mid ahaa halkii inuu doonanaynaba in isweydiinaynaba ku dhig saaxiib nin aan raggii hore ku jirin oo inagu soo birina sidaynu oo imika joogana sidaynu iska oranayna isweydiinaynaba ku dhig nin waxa la oran jiray arrinkeen ninna waxa la oran jiray aqbalkeen nin waxa la oran jiray abaal galay ninna abaal gude ninna waxa la oran jiray in dheer garad horta 5 nin oo raggii hore ka mid ahaa raggii hore isku faaqideen soo maaha awiyasheen 5 nin halkeen ka doonayno yesayna isaga soo xulaynaaba nimanka u baahnay baan ku wari waxa kaloon idinku darayaa nin aan raggii horeba ka mid ahayn baa inagana inagu soo biiray waa ninka kale la yiraahdo dhaqan kala doon isagoo bilmetel Soomaalida la hadlay gidi maanta Ingiriiska ugu wadaya ma garatay marka kaasna sidaan iska oranayno waa kaan leey maskaxdii buu ka noqday Yurub waana in hebel oo reer hebel ayaa horta dhib keenay marka waxa weeye sida run ahaantii horta wax badan walax badan baa dhiman waxaan farayaa imaka oo aan imaka abwaaninta farayaa af Soomaaligiin qorta gabayada iyo geerarka inaga si joogaan waxaan u soo gudadegaynaa naxweynta hadalka si aynu caruurteena u barno oo hadalku hadduu inooga dabar gool Soomaalinimada iyo magacuna uu dabar go'aya
daawadayaal intaasi waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo toddobaadkan idinka imanayay magaalada burco barnaamijka waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah bashiir xaaji ibraahin waxaa marti igu ahaa abwaan mukhtaar yuusuf aw maxamed waa sawir qaadistii maxamed yuusuf baxnaan inta aynu barnaamijkan lamida ku kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa dhammaanteeba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu